في خير أيام الدنيا تنير لنا خيرا من الله تيسيرا وتمكينا عشر لنا في ربوع الكون قد رسمات فتحا من الله يسقينا فيروينا. طبعا كان معلومات كبلاب بيا مانتا فضلك أيليهين كسر أرين نصوص تي الدليل ذا وحكوك إنه إلهي كل أرتي سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر إلهي وحكو أرتي واجه برية إياها بيناتهم أنا marka culimada tafsiirku siday u badan yihiin waxa weeye kama yaqul ibn kathir wa tobanka u horeeya bisha arafa inuu naqaanay dil xijja layda waadid habeenadii la sheegay habeenkii maalintu ma kala haraanaba wada socdaan culimada qayb kamidina habeen mar hadii la sheegay habeenada tobanka u dambeeya ramadaan bay ku fasiraan waxa labaada fadligooda kamida ayaamahan quraanku si gaar u calaamadiyo wuxuu ilaahay u bixiyay al-ayaamul macluumaat maalmaha la yaqaano khayrka iyo wanaag iyo dadaalka lagu yaqaano sidana waxa sheegaysa aayada 28 ee kamida suuratul hajj ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام dadka cibaadaysanaya ayaamahaas xajka amalka soo gudanaya maalmo la yaqaano ay ilaahay xusaya oo magaca ilaahay ay ku gowracayaan xoolaha ilaahay ugu dhawaan lahaayeen nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu yiri amal saaliha oo la sameeyo sharti an yakuna saalihan amal wanaagsan oo la sameeyo oo alla ka jecel yahay ma jiro عمل كلا سمايو طبعاً كمبري وبيشا مركي دالتو بالله كذا إلى طبعاً كأوري عمل كصالح يلا سمايو عمل كفي عنه إلهي كتشعل يمشي وعيدا الصحابة رضوان الله عليهم أكتوض وحا مقرر كأها إنه جهاد كيهي أعماش إلهي اللي قد هذا قوة وقفض بدن يقول قيمة بدن مركز وحيدا رسولك لما حتى جهادك النبي صلى الله عليه وسلم حتى جهادكم قارك إلا ننبحي وحوله سي نفتي سي لتغي قوبت الدقالك وأن وحب الله صور نقنين نفنا الله صور نقنين حولنا الله صور نقنين مويه كان مويه انت كالنوعية دي جهادك وحكى فضل بدن النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح ومال مهن للسميه مركوا إن لو فائدة استوى عماش خير كقيبه إذا كلا قدسا day sadaqadii tahay day soonkii tahay salaado la badsado haday tahay dikriga ilaahay tabaaraka wa taala takbiirta iyo tahliisha iyo xamdiga iyo tasbiixda adkaarta faraha badan ee nabiga amray sallallahu alayhi wasallam in la badsado maalmahan in aan ku dhex jiro